waxay ka mid tahay jasiiradaha adduunka ugu la yaabka badan. Jasiirada mucjisada quruxda lagu tilmaamo ee Maldives qof kasta wuxuu ku hamiyaa amba jecel yahay inuu marun tago. Jasiirada Maldives waxay isugu yimaada dalxiisayaal kala diin iyo dhaqan duwan, laakiin ma ogtahay Maldives dadka degan inay yihiin dhammaantoodba Islaam. Sidoo kale ma ka warhaysaa inuu ka talin jiray jasiiradahan quruxda badan leh Suldaan Soomaaliyeed? Ma ogtahay dadka degan Maldives inay markoodii hore ahaayeen dad gaalo ah? Maxaa ka jira taariikhda odhanaysa jasiiradahaas inuu gaarsiiyey diinta Islaamka ganacsada Soomaaliyeed? Soo dhow daawade, waanigoo ah Nadari Saciid. Fadlan muuqaalkan like saar sababtoo ah waqti badan ayaa iga galay. Waad mahadsantahay. Maldives waxay ka mid tahay goobaha ugu quruxda badan adduunka kuwaasoo loo dalxiis tago. Laakiin ma ogtahay Maldives dadka degan inay yihiin dhammaantoodba Islaam? Sidoo kale dastuurka wadankan waxaa ku jira qodob sheegaya qofkii ka baxa diinta Islaamka in lagala laaban doono dhalashadiisa. Kaliya wadankan waxaa muwaadin ka noqon kara qof muslima. Maldives haddii uu ilmo kugu dhasho adigoo dalxiis ah oo wadamo kale ka yimid, waxaa qasaba ambase muhiima inaad ilmahaas u bixisid magac Islaam. Sidoo kale wadamada dalxiiska loo tago waxaa lagu yaqaanaa amba aan laga waayin goobo khamri iyo baarar si dalxiisayaashu waqtigooda ay ugu qaataan. Laakiin Maldives way ka duwan tahay oo waxaa ka mamnuuc ah khamriga. Waynu ognahay Maldives waa wadan dalxiis, sidoo kale ay isugu yimaadaan dad kala diin iyo dhaqan duwan. Bisha Ramadaan dhammaan makhaayadaha cuntada waa la xidhaa, dadka dalxiisayaashuna waa qaar ku qasban inay ixtiraamaan diinta Islaamka. Qaanuunka aasaasiga ah ee u yaala dhammaan jasiiradaha Maldives amba lagaga dhaqmaa waa shareecada Islaamka. Haddaba dadka sidaasoo dhan diinta Islaamka u jecel, sidee ay ku islaameen yaase soo gaarsiiyey? Dadka degan Maldives waxay haayeen qaar leh dhaqamo iyo caadooyin la yaab leh, iyagoo bil kasta hablaha gashaantimaha ah u qori tuuri jiray. Kadib gabadhii soo baxda amba ku guulaysata ay siin jireen cirfiidka badda. Markuu gobolku dhaco ee ay habeen noqoto, iyagoo meel lagu soo xidhi jiray, subaxiina loo soo toosi jiray inantii oo dhimatay. Waxay aaminsanaayeen bil kasta haddiina siin lahayn hablaha gashaantimaha ah inuu ka cadhoonayo cirfiidku, dhammaantoodna hoogmayaan, jasiiraduhuna sidaas ku halaagmayaan. Bil kasta markay dhammaato waxay isku iman jireen dadka degan Maldives, qorituur ayay samayn jireen. Reerka ku guulaystaa waxay u ahayd murugo iyo tacsi, waayo inanta reerka ayaa waxay u hibayn jireen cirfiidka badda. Hablaha aan weli la guursanay gashaantimaha ah waxay ku dhiman jireen sidaas. Tani waxay u ahayd waxay aaminsanaayeen caade iyo dhaqan u gaara iyaga. Reer Maldives bil kasta waxay u ahayd murugo iyo xanuun. Waxay sidaas ahaadaanba jasiirada waxaa yimid ganacsada Islaama oo la odhan jiray Abubarakaat Al-Barbari. Wuxuu ku degay guri ay deganayd islaantii iska lahayd taasoo soo dhaweysay. Abubarakaat Al-Barbari maalin ayaa wuxuu maqlay oohin iyo qaylo badan. Wuu soo baxay isagoo yaaban, wuxuuna arkay islaantii guriga uu ka deganaa iyo dhammaan reerkii oo wada ooyaya. Kadib waxa uu weydiiyey sababta ay u ooyayaan iyo waxa ku dhacay. Waxay u sheegeen inay noqdeen dadkii qorituurka ku soo baxay, sidoo kalena islaantu inanta ay dhashay caawa in la siin doono cirfiidka. Abubarakaat tan la yaab ayay ku noqotay maadaama uu ahaa qof iimaan leh oo Islaama. Abubarakaat ayaa wuxuu soo jeediyey booska gabadha caawa in isaga la geliyo. Way aqbaleen, waxaana la geeyey Abubarakaat Al-Barbari meeshii lagu xidhi jiray hablaha. Habeenkii wuu dhammaaday, sidii caadada ahaydna waxaa laisku diyaariyey aroorta in laga soo saaro meydkii gabadha ee meesha lagu xareeyey. Dabcan cidina may ogeyn in booskii gabadha lagu bedelay ninkan. Markii ay dadkii isku soo baxeen ay yimaadeen goobtii si ay meydka gabadha meesha uga soo saaraan, ayaa waxay la kulmeen mucjiso la yaab leh. Ma tahay qof goob ganacsi leh amba internetka wax ku dhex iibiya, sidoo kale macalin online-ka wax ku dhiga? Ma tahay qof gawaadhida guryaha iyo dhulalkaba iibiya? Ma leedahay xafiis yarood ku shaqaysato nooc kasta oo shaqadaadu ay tahay? Ma jeclaan lahayd ganacsigaaga inaad horumariso macaamiil badanna ay kugu soo xidhmaan? Bulsho badan oo daafaha adduunka joogtana si yaroo fudud uu ku gaadho kuna bartaan adiga. Haddaba la jaanqaad tiknoolajiyadda cusub adduunka taasoo ah internetka. Ku kobci ganacsigaaga hab online. Waxaa kuu fududaysay Daus Technology iyadoo xayisiin ku samaynaysa sidii uu bulsho badan oo daafaha adduunka joogto uu ganacsigaaga u gaari lahaa, macaamiil badanna ay kugu soo xidhmi lahaayeen. Daus Technology waxay kaa caawinaysaa inay social mediaha kugu dhex baahiso nooc kasta oo ganacsigaaga uu yahay. Ku xidhnow Daus Technology. Kala xidhiidh WhatsApp nambarka shaashada ka muuqda.
si ay meydka gabadha meesha uga soo saaraan ayaa waxay la kulmeen mucjiso la yaab leh. Waxay arkeen iyadoo meeshii gabadha uu fadhiyo ninka lagu magacaabo Abubarakaat, welibana isagoo quraan akhrisanaya. waxaa dhici jirtay gabadh kasta oo goobtan lagu xidho inay dhiman jirtay, laakiinse Abubarakaat wuxuu ahaa isagu mid quraan akhrisanaya isagoo nool. tanina waxay ku noqotay amakaag iyo fajac dhammaanba dadkii deegaankaas. waxay ku noqotay dhacdo aan hore ugu dhicin iyo arrinay u qaadan waayaan. kadibna Abubarakaat way kaxeeyeen iyagoo u geeyay boqorkii ka arrimin jiray jasiiradahaas oo lagu magacaabi jiray Shinoraza. waxay uga sheekeeyeen boqorka dhacdadii ay indhahooda kusoo arkeen iyo ninkani wuxuu sameeyey. sidoo kalena boqorkii waxay ku noqotay layaab iyo filan waa, wuxuuna weydiiyey siduu ku badbaaday. kadib Abubarakaat ayaa wuxuu u sheegay inuu yahay muslim iyo welibana wuxuu sameeyey, isagoo welibana ugu nasteexadeeyey diinta islaamka, una sheegay inay iska joojiyaan dhaqankan foosha xun iyo caadooyinkan xun. dhammaan waxay aaminsan yihiin oo dhanna inay iska daayaan diinta islaamkana sidaa kusoo galaan. kadib boqorkii ayaa u sheegay bisha kale soo socota inuu joogo, mar kalena inuu sameeyo wixii markii hore uu sameeyey. iyadoon laba gaadhinba maalinkii ku xigtay dhammaan boqorkii iyo dadkii deganaa Maldives sidaas ayay ku qaateen diinta islaamka, waxayna burburiyeen dhammaan asnaabtii ay caabudi jireen. Abubarakaat al-Barbari wuxuu noqday qof qiimeyn iyo qadarin iyo xushmad badanba loo hayo, kuna dhex leh magac dhammaan jasiiradaha Maldives. ilaa imakana qabrigiisa waa la xusaa isagoo welibana masaajid loogu magac daray. qabrigiisa ilaa imaka waxaa xusa oo booqda dhammaan qof kasta oo islaama. haddaba laga yaabaa su-aashaad imika isweydiinaysaan inay tahay Abubarakaat xaggee ayuu kasoo jeeday marka laga yimaado inuu ahaa nin muslina. taariikhda qaar ayaa waxay sheegtaa inuu Abubarakaat asalkiisu ahaa muslim kana soo jeeda Morocco, laakiin waxaa jira taariikhyo kale oo sheegaya inuu Abubarakaat uu ahaa asalkiisu Soomaali, waxayna u daliishadaan magaciisu ugu horeyn inuu ahaa Abubarakaat al-Barbari. naanaystan dambena loogu bixiyey iyadoo loogu abtirinayo magaalada uu kasoo jeedo ee Berbera. sidoo kale waxaa la sheegaa jasiiradahan inuu ka arrimin jiray suldaan asalkiisu Soomaali ahaa oo la odhan jiray Cabdulcasiis al-Muqdishaawi. sidoo kale naanaystan ayaa ahayd mid loogu abtirinayo magaaladu kasoo jeeday ee Muqdisho, wuxuuna ahaa Cabdulcasiis suldaankii u fadhiyey jasiiradahan sandaladii Ajuuraan. soomaalidu waxay ahaayeen qaar door weyn kula fidinta islaamka, sidoo kale ganacsato. dhulalka ay tagaana dadka ugu yeeri jiray diinta islaamka. Maldives waa jasiiradaha dhaca badweynta Indiya, sidoo kalena koonfur galbeed kaga beegan Sri Lanka iyo Indiya. gumaystihii Ingiriiska ayaa sidoo kale wuxuu haystay 78 sano. Maldives waa wadanka ugu hooseeya adduunka, kaasoo biyaha badda ka sareeya 1 mitir iyo badh oo keliya. jasiiradaha Maldives waxay khatar ugu jiraan inay baddu qariso, taasoo dowladdu dadaal badan ku bixiso sidii khataraha kusoo wajahan dadka looga ilaalin lahaa mar kasta. Maldives waxay ka kooban tahay 1200 oo jasiiradood oo yaryar. sidoo kale dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa inay gaaraan 500 kun oo qof. waxay ka mid tahay dalalka ugu yar adduunka, kaasoo islaamkuna u dego. dhaqaalaha wadankan waa mid aad ugu tiirsan dalxiiska iyo kalluumaysiga. Maldives waxay ka mid tahay goobahan ugu jecelahay adduunka inaan marun kusoo dalxiis tago. daawade, adiguna sidoo kale ma jeclaysan lahayd inaad marun soo booqato? nagula wadaag fikirkaaga xagga kommentiga. ha ka ilaawin inaad muuqaalkan like saarto, sababtoo ah waqti badan ayaa iga galay. waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan.